السلام عليكم. ما doonaysa inaad bariiska ka bedelatid waxyaabaha cuntooyinka wadaniga ah oo ma tahay tiim cunto wadani. Haddaba waxaan ku bari doonaa sida sarreenka ku bedelan doontid bariiska oo si fudud oo waqti badan ka qaadanin halkii bariiska bedelkiisana uu ku gelayo. Waxaan sidoo kale ku raacinayaa whole chickenkii oo aad u samaysan kartaa si fudud oo gurigaaga ku dhex samaysanaysid. Hadda waxaan soo qaatay digaagadii ama chickenkii dhammaystiranaa, barafkan ka soo dhalaaliyay oo soo meeray, kadib waxaan ka soo saartay maraqaas khudaar badan kuma darin. Waxaan ku daray bis waa basal iyo toon, kamsar iyo xawaashiyadiisii buurbuurnaa sida haylkii, waraqaarkii, waxyaabahaas. Halkan waxaan kusoo diyaarsaday sooska aan ku gelin doono ofinka. 20% marka uu biseelkiisa ka dhinaa ayaan dabka ka baqtiyay. Waxaan halkan kusoo diyaarsaday waa sooska aan ku marsanayay Indonesian ofinka ku geliyay. Halkaas waxaa ku jira waa barbecue sauce, waxaa ku jira maxaan ku dhahdaa dibista rumaankii, soy sauce-kii, waxaa ku jira xawaashkii, xawaash kaarigii, barbaroonidii shiidnayd, garam masala, de waxaa jeceshayba wixii aad xawaash aad haysid adigu waxba ka hagaran. Kadib waxaan soo diyaarsaday weelkan ofinka ku gelinayo, korkaan ka soo marinaya. Haddaba xawaashka hal mar ma wada marin doono. Ofinka waxaan ka soo saari doonaa dhowr jeer, wuxuu ku jiri doonaa ilaa 15 daqiiqo 20 daqiiqo. 5 daqiiqo mar baan xawaashka marinaya, waayo markastaba qaybta dusha marsan ayaa soo hor casaanaysa. Kadib inaad rogtid xagga kale u rogtid xawaashka hadana marisid si uu si qurux badan oo cas oo dhadhankiisu u macaan yahay ugu soo baxo. waxaan nidna 20% baa ka dhiman biseelkiisa. 8% wuxuu kusoo bislaaday maraqii. Intaas waxaan doonayaa on kaliya inaan ofinka kusoo huurino oon kusoo casaano. Kadib waxaan ku shidi doonaa ofinka kor iyo hoosba. Muddada ugu jirayna kama badanayso 15 ilaa 20 daqiiqo. Waa soo saaraysaa, waad marinaysaa, dhinac kale u rogaysaa, waad marinaysaa, waa kaasasad ku wada doontaa. Marka isaga halka aynu warkiisa ku dhaafno, markaynu ofinka gelino, waxaynu u jeedsanaa sidaan u samaysan lahayn burgalkii. Burgalku muxuu ka samaysan yahay? Burgalku wuxuu ka samaysan yahay waxa weyn waa sarreenkii caadiga ah. Waxaa loo yaqaanaa sarreen Turki. Waxa weeyaan sarreenkii oo la soo yar habeeyay oo biseelkiisii waqti badan uu ka qaadanin. Yani mar baa la soo bisleeyay, waa la soo qalajiyay, kadib baa la inoo keenay. Marka aad waxaa u isticmaala Turkida iyo Carabta. waxaad helaysaa isagoo mismiis suuqa yaala, bakhaaradan waxaad ka helaysaa isagoo 10 kiilo u xiran ama maxay ahayd 6 kiilo meelahaas oo laga helaa. Marka waxaad oranaysaa hadda suuqeen xataa tagtida maamooyinkii xirxluuta joogtay weydiisay waxaad oranaysaa hooy sarreen Turki baa rabaa, waa lagu miisayaa, baad soo iibsanaysaa galaan kiilo kolba inta aad u baahan tahay ee soo qaadanaysaa. Kadib halka waxaan ku haystaa xawaashiyadii iyo khudradii aan ku samaysan lahaa. Marka waxaan rabaa inaan khudrad badan ku darin waayo aan ku cuno kale maxay ahayd chickenkayga aan samaysanayo. Halka waxaan ku haystaa waa xawaashidan ku daray. Xawaashadu xawayaan barbaroonidii shiidneed, xawaash kaarigii, kamsaradii, toontii, basashii, garam masala, milixda ama waxay kala ku dhanaansanaysaa naaday ku taala. Halka waxaan ku haystaa HP sauce waa sauce ka samaysan xamar iyo xawaashi la isku dardaray cuntooyinka. Marka basashana waad ku dari kartaa, gadaalna waad ka dari kartaa, korkaad ka dari kartaa. Marka waxaan ku soo shiilanayaa basashii, toontii oo soo yaryarayay baan ku darayaa, waayo waxaan jeclahay basasha iyo toonta inay isla shiilmaan. Bas toontana ma jecli inaan xoog u tumo, waxaan jeclahay inaan marka waxyaabahaas oo kala karinaya inay dhadhankeeda laga dareemo cuntada. Marka basasha iyo toonta ayaan soo yar shiilanayaa. Inta iyagu ii shiilmayaan waxaan ku noqonayaa digaageygii, waan soo rogaya dhanka kalaan ka soo marin doonaa xawaashka sooskayga aan diyaarsaday. Wakaas saas baan ugu soo wadayaa chickenka. Markay meelaha 5 daqiiqo meelaha uu ku jira waan soo saaraya, waan rogaya, waayo waxaan doonayaa dhinac kastaba inuu ka bislaado. Dhanka kale waxaan ku samaysanayaa markaa kasii wadanaya suugadeedii. Halka waxaan ku haystaa waa barbaroonidii oo soo yaryarayay iyo kamsaradii. Waxaad isweydiinaysaa tamaandhadii ama xabuubtii maxaa ku dhacay. Tamaandho anu kuma darayo sababta ah waxaan haystay hal bucket oo ah tomato sauce ama tamaandhadan loogu talagalay cuntada in lagu daro ee tamaandho gurgurtana ka yar adag ee sida tamaandhadeena iyo fadhida oo kala ah. Taas baan ku darsanayaa supermarketada qaar baa laga helaa.
haddii aanad haysan waxaad samaynaysaa tamaandhadii baad soo qaadanaysaa waad xoqaysaa kadib baad ku darsanaysaa ama waxaad soo qaadaysaa tamaandhadii waad shiidaysaa oo iyadoo adag baad ku darsanaysaa haddii markaa aad taa haysatidna taasaad ku darsanaysaa anu markaa waxaan haystay tamaandhadaas aan idiin sheegayo gurgurtana ka yar adag taas ma soo qaatay waan ku darsaday iyo xawaashidii markay basashii iyo isla soo yarshiilmeen barbaroonidii anu ma jecli khudaarta in la dilo basasha iyo barbaroonida ma jecli xoog waxaan jecelahay in adu dhadhankoogu iyo caraftooda aanay baabi'in waayo hadaad xoog casiisatay dhadhankiiba cuntada ka dhimanaya marka waxaan ku darsanayaa xawaashidii waxaan ku darsanayaa kamsaradii iyo tamaandhada nidii sheegay waxaaba markaan isku soo darsado ayaan isku soo shiilayaa waxaan markaa ku biyeysan doonaa maraqii aan ka saaray chickenka haddii aanad maraqa haysanin ama wax kale haysanin maraq kale haysanin maraqaas ku darsanaysaa haddii kalena sidayna caadiga ahayd bariiska biyaha kulul aynu u karkarsan jirnay baad u karkarsanaysaa waad ku darsanaysaa khudradda marka isla shiilanto waxaad sidii bariisku baad soo meeraysaa waad ku daraysaa waad isku soo yarshiilaysaa isku soo yarqalanaysaa burqulku wuxuu ku bislaadaa bariiska intuu ku saaran yahay anag sida bariiska kalena waad u yar biyeysanaysaa waayo isagoo aniga kule hore u soo bislaaday inta bariiska intii ramadaanka karsan jirtay karis ahaan u karsan jirtay way garanaysaa iyagu way fahmayaan inta aan hore u karsan jirin baan markaa u sheegaya bariiska intuu kugu soo bislaaday in kugu soo bislaanaya biyahana sida bariiska kale kugu soo bislaanaya haddana waxaan ku noqday chickenkii oo aniga dhinaca kale u rogay xawaashkii baan markaa soo marinaya haddana ofinkii baan ku celinaya hawshiisaas marka ilaa 3 jeer ayaad soo saaraysaa waad marinaysaa waad ku celinaysaa waayo markaas waxaan doonaynaa dusha sare oo kaliya inaan casaanin dhan kastaba ka casaado marka waa kaas si fiican buu iskugu soo shiilmeen markay si wanaagsan iskugu soo shiilmaan muhiimadda marka bariiska iyo waxyaabaha maxaan ku dhahdaa isku dhexkariska la iskugu shiilaa waxa weeyaan inay dhadhankii ka qaadato xawaashidii iyo waxyaabihii dad markaaba biyaha ham ku siisid dhadhanayda aad kuma yeelanayso de waa kaas soo biyeyso waxaa isoo guraya de uu hadal ma karayo idinkaa soo tijaabin doona haddaad muuqaalkan ka hesheen muuqaalada cunto wadanadana aad jeceshiin inaan soo badiyo isagoo noocyo kale loo sameynaya nagii soo gudbin doona isagoo hurisa nagii soo gelin doona dee pageka hala follow gareeyo muuqaalka xaqiisa hala siiyo asxaabtaadana la sii wadaag haddaad igu cusub tahay magacaygu waa raxmo waad ku mahadsantahay daawashadaada